بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم ماشي نقد دعوانيسو. أنا جمر ربا إن قدر النقد ولا شيء تاريخ في عن سوق شيء. وحي أنك أوجينا كشيكت ورنت أي تحي. سي شيكت آمنه وأنا إلههم بانك بقينا. بني آدم كما بقينا. لكن وطن كم حد مدة إن عن حقا كحجنا دتك. حاجر اللي بكذا وأنا دبايا. ولا شيء أمن سي شيكتي. دجال إيو. maxaa tirada qabiilaysi iyo waxaas anagu waa ka soo gudubnay tii marka hore la isku cadaabay eedo 90 beentan oo ku sheegay waa ogaana waxay tahay interest yimiday waan ku faraxsana maanta in qabiilo kala duwan ee interest isku yihiin aysan maanta jirin hal ciido meel ka soo jeedo taas waxay tusaysaa ummadda Soomaaliyeed maxaa tirada heerka ay gaareen bulshada xamar aan raba marka hore inaan ka bilaabo u mahad celiyo Ilaahay subhanahu qaadir ama hadda iskale bulshada dul badan oo damiir lah oo wadanka u naxay ahaayeen waxa jira waxaan socdo dhan dhagiyan ka furaysanay waxaan uga furaysanay waxay ahayd laba arrin inaan wax ka qaban karin marka hore anaga doorashadeena qof inaysan ku imaanin haddana doorashadeena ay qof ku imaanayso labada maadaama saas ay ahayd waxaan go'aan gaarnay bal inaan Ilaahay barino in Ilaahay meesha nabad nagu siiyo oo guri barwaaqale oo nabad leh aan dhex joogno oo ummadda isbitaalada ku jirto ee niyadooda u degto bil ramadaan oo karaamaysan ahayd Ilaahay subhanahu qaadir inta maskaas dulman dacwadooda maqle waxa jira xaralaat isagaalka waxaan ku soo gaarnay nabad iyo barwaaqo iyo bashbashan ku soo gaarnay abaarana hayse abaar sidii loo hayse looma dhimanin walaal Soomaali gacanta isqabatay walow qaar ayuu sadaqada qaybina xataa la dilay laakiin waxaan ognahay anaga ajasha in maalin lagu dareenin maalin laga dhimaynin ummad muslimaan nahay wax kasta oo soo sabarnay waxaan ugu sabreen waxay ahayd bal maalmaha kamid ah ma arki doontiin isbedel fiican oo dhaco oo qof wadaniga afka laga ma ahan maxaa tirada niyada laga ma ahan wadaniga waxa la qofka inaad tusid waxa qabatay iyo waxa sameynaysid wadanigaas la yiraahdaa waxa jir maanta dan la aamusana wadanka waa jeclaan leh cid ma fahmi karto maanta dan daldala oo wadani ah leen tuug ahane waxba ima anfici karto laakiin maxaan qabtaan rabaa in lagu xisaabtamo Ilaahay subhanahu qaadir adduunkan waa xisaab aakhirana waa xisaab mid aan ruuxayta annaga hooyooyin aan nahay wadankan inta aan ka soo marnay ninka soo mar ma jirto inta u tartamaysa inta baarlamaanka fadhido oo 300 xoogaaga ah haddana islaamiga qeyradan loo yaqaan islaamiga kana loo yaqaan waa ku faraxsanaa horta haddaan la dhahayn inta soo gurin waa gateen inta soo waxna way sameeyeen inta soo qofna waa dileen laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaan ka rabaa in horta la xisaabtamo annaga Ilaahay aan barino Ilaahay hadaa wax wanaagsan weydiisatid adoo arsaaqadaada $50 qaadanayo aad dayib ku noolaanaysa adoo $50 qaadanayna iimaanka ka baxay kuguma aado xajir bariyad Ilaahay raali kama ahan qof tuug ah qof dadka dilay qof dacwo ku jira 24 saac oo rabo in la baabi'iyo cadow aan leenahay oo gudaha oo leenahay cadow dibadda oo leenahay cadow international ah aan leenahay oo lugaha nagu dhagan in maanta inaan iska shanay ahayd maanta meesha aan taaganahay waa meel hore loo sii socon karo waa meel maanta ciidankeena oo soo baxay midaan raba aniga aad iyo aad ugu faraxsanahay oo ku jiifano waxay tahay in ciidan aan leenahay in wiilka yarka uu dhageysanayo 25 mishaarka u soo dhacay kaasoo la shaqeeya aabiis iyo hooyadiis iyo adeerkiis iyo qabiilkiis iyo waxa soo tari waayay kii wax la soo baro wanaag loo sameeyay shaqo ma haysto kii shaqo helane in loo wacdo berliira kale waa laga baxay marka waxaan rabnaa dhalinyaro u badan maanta 70% waxaan u maleynaa baarlamaanka wax ku jiro waa dhalinyaro cusub inkastay kaadiriintan ku jiraan laakiin waxaan leeyahay dhalinyaro cusubow wadanka idinka iskale annaga maalmii cadaanka waa soo marnay maalmo aan cadaalad darro jirnaa soo marnay iskoolkan loo aan simanaan soo marnay aabayaashan askar waxna la soo baray aabayaashan askar aan dadka lamid ahayd aan kala sarreyn aan arki jirin oo xuquuq ku nooleen waxaan isla gelin ka soo baxay maanta oo nimanka maanta meesha joogo ama madaxweynaha rabo ama xildhibaan hore ha noqdo ilmooda Turkiga wada geeyaan xamar ma gubanayso culumaan leenahay waxaan leenahay dad waayeel aan leenahay agooman aan leenahay gabdho garoobo oo sadaqada ku kacdaan leenahay oo Ilaahay baryaay oo ilmihii uu kornay aabal aan ku kornay aabahoodna asoo 20 jir oo shaqeeyo intaas baryadooda iyo inta marka daalumka ah oo dhibka rabo oo u shaqeynaayo dad kale ama u shaqeynaayo dantiisa ama aniga wax ugu fiican dhahayo ma soconayso tiisa teena soconayso waxa idinka rabaa baarlamaanka idinka ama hal idin doorto qabiil ha idin keeno ama ha idin keeno maanta qaranaatiino kitaabka Ilaahay muslimiin ugu jirnaa xataa Soomaaliyeed aan loo dhaqaajisiin
مسلم أنا سي ولا شيء شاكتي كتابك بقولي توني أفرطة ماشي اللي صادقي وحي إهاد إن علماء قاركود وكهذا الشيء دنبيا كزيادة حقوق زيادة يا إن كتاب كان قعنت أنصارنا كونستيوشن كي وحن كقلنا لو دقالم مركز دان عشر إيجا هذا وحن ربنا قفك بني آدم كأقول حرو قول كحرو حيتها ما أنت قول كاجا هدي عنق يرترننا عن كوكنا وكين ويسد دنبيا كجرتا صومالي بين ما هيسته عنق عروران سيري لذا تضبط ما أنت يوم القيامة إلهي هركوده وقلنا وكم قيها قفكاس عزبيل الدين وكم قيه قاعن القرن وكم قيه وحان ربا مركا dhimashadeenna meel inoo jirto ma naqaano ilaahay cimrigaana soo gaarsiiyay waxaan ugu dul qaadanayna wadankan waxay tahay inaan gaarsiino meel nabad la helo cadaalad la helo masaakiin wax u qaybinaa haddaan waxooda cunno saacadan soo ma gaarno waana tilmaami lahaa haddaan waxooda ku dheelno sidoo kaleeto dad maxatarada ciyaal yar yar oo jaamacada soo dhamay amshaar ka qaato maanta dii albaabka la isku xiro oo nimankaas UN-ka dhididkeena ku jiro wadamada muslimka lacagtooda ku jirto ilaahay uga soo qaaday oo mishaarka ay qaadanayaan albaabada la isugu dhufto ma anaga iscunayno waa maya nin cadaan wuxuu soo qaatay wuxuu yiri bal hal fiiriyo yiri Ukraine cadowgoodii iyo kii cadowga gudaha ka ahaa iyo kii magaciisa waxa baabi'iyay markuu yiri ruush waa rusheynaya halay noqdeen banaanka ilmoodii geysteen soo noqdeen annagana ko wuxuu diri jiray ilmaha carruurta inuu dirsado waa asna dhijir meel ma isii qabateen marka waxa ogaateen wadankan ilaahay subhanahu qaadir bad cadaan nasiye Soomaali naga dhigay waxaad ogaataan gabagabadii aan taaganahay waxaan taaganahay maanta diirarka aan rabno waa dhisan yihiin aniga inta meesha la soo doortay iyo inta maxatarada bari wax dooranayso waxaan ku waana waxay tahay cadaaladda cidna isxaan idinka ma rabto cadaaladda daagadatiin kii laaluushka dhiibo ee kii qaata labadaba waa nacalada ilaahay subhanahu qaadir ah nacalada ku dhacday haddana waxa idin sheegay abuur xaaraan ee marka soo inaan ka sugno ayadoo tiitiin la abuur inaan sugno inuu noo soo baxo tufaax ama cambe noo soo baxo ma jirayso ma dhacayso waxaad ogaataan gadaal isugu noqda idinka is xisaabiya annaga intii hore waa soo marnay dhibkuna waa soo marnay tanna waa maraynaa mooyaha maxatar misigada ku barada ilaahu naga dhigan ku duceysanaa ma garatay qofkii xaq ku socdane ilaahay waa kaalmeynaya midda idin korna aan ku sheeg maxay tahay horta waa ku faraxsanaa in aan ka baxnay cariiriga tirada badnaa iyo maxatarada Soomaaliya waxa dhacaysa sharafteeda dhacaysa may hadii la gaaro mishaar askar qaadan lahaa ma la arki lahayn maanta waxaan ilaahay subhanahu qaadir u shukrineynaa ninku asaga noo doortaan noo yimid ama midaan saahlno ciqaaba ha noqdo ama midaan saahlno baryadeena ku magaciis kara inuu noqdo qalbiga ilaahay rogrogo waxaan ugu duceynaa waxa u dambeysay ugu duceynayna ilaahu qalbiga rogrogo diinta ku soo rog maxaa jir mar hadii ilaahay cabsidiisa ku gasho wax badan ilmahagaad u kala xaq sooraysaa xaaskaaga u xaq sooraysaa hadii kale iska dhaaf qabiilku soo doortay qaranna maxaa ka tari kartaa waa annaga ninka noo soo tafaxeeyay in Soomaaliya oo wax inuu qabtana ciqaabo ilaahayna ma tusaayo ilaahay mid naxariis leh oo noo naxo oo warka xun naga dhooro oo noo aamuso oo xoolahayna qaadan oo waxayna dhicin oo jid naga dhicin oo isbaara noo dhigan oo maxatarada guryo ku dhisanin oo daawada naga xadin oo isbitaalada beecsharada lagu magaciiseenin ilaahayna siinaya markaas wuxuu dhalayaa wasiiro wada degan ayagana qalbigooda degan yahay waxaan ku faraxsanahay gabadha Soomaaliyeed ee maanta meel aysan gabdha Soomaaliyeed gaarin ama Afrika badi aysan gaartay oo ah gudoomiye ku xigeenka labaad golaha shacabka Saadiya waa ku faraxsanahay haddana haweenka Soomaaliyeed ee 30 sano u ordaayay goormeel la heli doona gabar miis fadhido oo go'aankeeda dhinac ka socdo waana ognahay gabdhaha go'aankooda inuu ka fiican yahay go'aanka ragga ayaga isfiirsado laakiin gabadha waxay fiirsanaysaa kan baahan oo ka dambeeyo tanyaayada gada hooyada yaanyada gado ilmaha agoonta leh oo maanta waxay ku idaan aan haysanin oo darbiyada taagan soonka la soomay dadka aan ku soomay ama afur jidka laga qaybay ku afuro ku suxurtay ama aan bahirinba oo ilaahay subhanahu qaadirna yiri kuwaas afuriya wax siiya ajir aad ka raadsatiin marka waxaan rabnaa inaad noo naxdi Saadiyo inaad la soo baxdid kartida gabar Soomaaliyeed ee lagu yaqaan inaad noqotid xaawataa ka meesha dhex istaagtay inaad noqotid waa kugu waaninaynaa adigana waa ku roontahay annagana waa noo roontaa ragga kalena waxaan rabnaa in ay gabadhaas kalkaaliyaan waxay u soo jeedisay ee raacaan sharciyada haweenka iyo sharciyada carruurta meesha ka maqan in la tixgeliyo oo soo saarno inaan aqal u gudubno maxatarada maxkamadda dastuuriga inaan u gudubno 4.5 kan aan ka qaylinayna waxaan loo haystaa annaga inaan rabno inaan ku shaqeysano
laakiin maanta qof kas waa taabatay kii u bagi jirana waa taabtay oo dacwo ka qabaa miskiinka la dhici jirna sida loo dhacayo dacwada weli taagan midda aan ku kala bixi karno maxay tahay inaan annaga sida ilaahay diinta islaamka inoo tiri qof dhahayo i doortay aan dooranin qof waxaan ku dooranay aan naqaan aan doorano waa nabad kaleena 4 sano 5 sano haba sii noqoto waxaan soo marnay aniga aan aaminsanahay inay iiga badanayd marka kale markay malaa'iga garbahayna fuusho hadaan nicmada ilaahay nasiinin aan ku shukrin qofka bini aadan ah oo isxaan falan aan dhihin waa mahadsantaa waxa ogaateen bijisaaran nahay ilaahay uma bishukrin qofkan dadka ku shukrin waxaan ku shukrinaa ciidamada qalabka sida ilaahay subxaan qaadir ka soko waxaan ku shukrinaa ciidamada haba ahadan bariis ha noqdo qof ka noqdo waxaan ku shukrinaa hooyooyinka Soomaaliyeed ee kartida lahaa ee intaas ilmaha aan iskoolka joojin ee xabada idoo dhacayso madfaca dhacaya dhinac maray waxaan ku shukrinaa ilaahayga boqorka ahaa ee nasiiyo culimo u diin ee quraanka ay u fariistaan oo wali socdo ee aan ku nabad galnay xamar waxa la rabaa saacadan inay ulul ahaato ilaahay kama dhigin xamar waa meesha loo soo shaqadeeyo doono ishaartan u jeedno waa la barwaaqaysanayaan annagana wax ma dooran karnaa ilaahay waxaan ka baryeynaa boqor caadil inuu siiyo qof caadil ah ilaahay inuu siiyo oo noo naxdo oo awlaad u naxdo oo isbitaalka dadka jiifo kaliya naga nadiifinayo iyo dadka ganacsatada oo ilmahooda inay qaateen Nairobi u sii dirsaday ee yiri xamar waxba ka dhacayo haddana raashinka adduunka lagu qaariyay ilaahay inoo dhaxayaan aan leena annagu waxaan rabnaa waxaan maanta inta u soo fariisanay waxay tahay inaan horta ku faraxsanahay gudoonka Soomaali u dhisantay maanta waxaan u maleynaa gacantiina ku jirta ummadda Soomaaliyeed u naxa gacantiina ku jirta ogaada ama janno ama naar labadaas leeyahay aada tii aad idinka jeceshihiin oo jannada haday tahay ummadda dhageysta codkooda shicibka dhaxgala masaakiinta dhaxgala ilmaha iskoolada dhaxgala ogaada wax codkeena uu yahay ogaada qofka noo naxayo nin alla ninka darajada ka soo doontane TV-ga noo soo fariisiya marxaati nooga dhiga haddaad ummad Soomaaliyeed naxaysiin inaad soo dhigtiin islaamihii iyo dhalinyaradii Soomaaliyeed jidka socotay aan su'aalo weydiino 3 su'aal bis ninka aan weydiino kii 3 su'aal ka soo baxo oo ummadda ku jirto wajibuuga iyo meelaha kale iyo Twitterada ku jiraan ay dhahaan Allah ilaahay ninkaas u qalmo aan isku raacnay codkeena maqla codkeena wax ku keensada si aad birno tirahdin hebel adinka nala doorateen antaas kuma iskana soona lagu jira waa duceysanayna walaashay way duceysay annagu idin duceynaya dadka laga duceysanaya nahay maxaa jir mar hadii 60 kala dhaafo waxaad ogaataan islaamaha oo xajiyaal ay yihiin oo dad ilaahay subxaanahu qaadir aha masaakiin kalmeena ay yihiin ogaada ducadooda habaarkooda waa kaca annaga ummadeena ma habaarayno waa idin duceynayna darajo caali Allah idin siiyo waxaan la filanayn Allah na siiyo nin aan wax noo dhiban Allah na siiyo waxaan ku faraxna Allah na siiyo ummadda Soomaaliyeedna barwaaq Allah ugu bedel abaarta hayso wabiyada biyaha Allah ka keeno roobkan soo meel dhinac kasta ka soo uranay Allah na siiyo dilkane ninka tii soo dhamaato kulli waa dhimana laakiin gacantaadii ku dhimanay ninka miskiinka wax dilaayo adna is astur jannadaada shaqaysa janna aan shaqaysano waxaan sugaynaa Soomaaliya nabad ah oo gacanta is haysato cadow ma qabno inta dawlad soo qabatana waa dad waxay ahaayeen fiican oo wadaniyiin ah si ay u qiyaasteen inta maanta haysan si u qiyaasteen wadan u yihiin kala baxa waxa la rabaa inay noqoto ummad Soomaaliyeed codkooda yaa naloo maqlin qadar wato yaa naloo maqlin Ameerikaan wato Shiina wato naga daaya nin aan wadanaha noqdo ilaahay garabkiina gal salaam calaykum raxmatullaahi barakaatuh